macadka midnimo oo kamid ah macaahida waxbarasho ee degmada Galdugob ayaa kulan maamuus u sameeyay 23 arday oo ka qalin jabisay macadkaasi waxay barteen culumta caafimaadka iyo barashada warbaahinta. Macadka ayaa soo bandhigay xirfadaha ardayda wax ka baratay macadkaasi. Munaasabadan oo ahayd mid aad u ballaaran waxa ka soo qayb galay maamulka degmada Galdugob. Maamulka waxbarashada, mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. dhalinyarada qalin jabinaysa ee dafcadii labaad ee iskuulka midnimo aad bay farxad igu tahay inaan walba markii hore la kulmay aan ka soo qayb galo caawa ardada qalin jabisay ee caafimaadka iyo saxaafadda ka qalin jabinaysa Galdugoobna waxay daawl caan ku ahayd ama salkeedu ahaa waxbarasho inaad idinka iyo kuwa badan oo kale aad ka qalin jabisaan waan rajaynayaa haddii lahaydmo iyo caafimaadka waxaan leeyahay hambaliyo waxaan tusaale ka bixinayaa qiso yar dhanka caafimaadka waxaan kaloo tusaale ka bixinayaa dhanka waalidiinta waxaan kaloo tusaale ka bixinayaa haddii lahaydmo dhanka waxbarashada run ahaantii intaan taagelin waxaan si gaara ugu hambaliyeynayaa maamulaha Nuux waa hogaamiye soo baxay weeye hogaamiyahana waxaa lagu tilmaamaa sida Cabdisalaan sheegay qofka sameeya waxa dadka kale aysan suurtagal ahayn qof ku dhiirada wax dadka kale ay soo arkaan inaysan macquul ahayn qofkaas waxaa lagu tilmaamaa inuu hogaamiye yahay wuxuuna u baahan yahay in lagu daydo oo role model uu noqdo. maamulaha macadka midnimo Nuux Cabdi Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada ardayda qalin jabinaysa ee macadka iyo koorsooyinka ay qaateen nooca ay yihiin. macadka midnimo waxaa la furay January 2018 qaybta degmada Galdugob laga furay ardayda ka qalin jabisay macadka guud ahaan waxay ka kooban yihiin haddii waxay kor dhaafayaan 300 arday ka qalin jabisay maahan ardayda wax ka baratay oo hadda wax ka baratay iyo kuwa ka qalin jabiyay kuwa hadda qalin jabin raba 300 arday ku dhawaad dufcadii koowaad waxay ahaayeen 22 arday oo isugu jiray rag iyo dumar 22 arday nursing ah 8 arday journalism ah total 30 arday baa dufcadii hore ka qalin jabisay sidoo kale taariikhda qalin jabiyeen maalin caawa kale 24 bishii 8 2018 bay ahayd maanta waxaa qalin jabinaysa macadka 23 arday oo nursing ah iyo 4 arday oo journalism ah totalkoodu waa 27 arday. macaahida noocan oo kaleeta oo sare loogu qaadayo xirfadaha dhalinyarada deegaanku waa kuwa xasilin karaya dhalinyarada deegaanka oo ku kalifi kara in deegaankooda ay ku nagaadaan marka ay bartaan xirfadana waxa ay ka shaqaysan karaan nooc walba oo xirfada oo ay barteen ay deegaanka uga dhex shaqaysan karaan. Imaan Maxamed Gaani, warbaahinta dawladda Puntland, Galdugob.